wafdiga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ee soo gaaray magaalada Gaalkacyo maanta ayaa waxa si diiran garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo ugu soo dhaweeyay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo boqolaal shacab kuwaasi oo ruuxayay calanka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo socdaal ku maray gudaha magaalada Gaalkacyo ayaa waxa halkaasi soo dhaweyntiisa si wadajir uga qayb qaatay shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo intaasi kadib madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay meel fagaara kula hadleen boqolaalkii shacabka ahaa ee soo dhaweeyay waxaana ugu horeyn soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya kuna soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Carigaas waa mahadsantihiin reer Gaalkacyo aad iyo aad baad mahadsantihiin soo dhaweynta madaxweynaha quruxda badan soo dhawaada waa mahadsantihiin aad baan ka mahadnaqaynaa madaxweynaha idin salaamaya intaasi kadib waxa shacabkii iyo mas'uuliyiintii soo dhaweysay fagaaraha kula hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wuxuuna sheegay in imaatikiisa Gaalkacyo uu qayb ka yahay nabad ku soo dabaalida laga wado gobolka Mudug waxaan rabaa in aan la wadaago safarkan magaciisa wuxuu yahay waxaan ugu magac daray safarkan inuu noqdo safarkan magaciisa waxa weeyaan rabaa halkan aan ku daafuro waa safarka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed وسافر كدب وشيسين الصوماليات أو أن ربا هالكن مجالنا قال كعيو أن دونا يعين نقطه هايجي دب وشيسين الصوماليات ومجال تاريخية أو كي مادين هالجمياشي ضد كمية كي مادين ماذا حدي قرن كصومري أنت هذي بنيد ومجال تاريخية markaasi waxay ahayd hal magaalo ahayd oo dadkeedu ay walaalayihiin waana ku soo celinayna insha Allah magaaladan inay noqoto meeshii dib u heshiisiinta Soomaaliya ka bilaaban lahayd hadduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsantiin sida sharafta leh oo wanaagsan oo waaltinimada leh oo kalgacaltooyada leh oo Soomaalinimada leh oo midnimada leh aad noogu soo dhaweyseen insha Allah waxaan u nimid inaan xog wareysano imaatinka wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee magaalada Gaalkacyo ayaa la jaan qaadaya xilli muddooyinkii u dambeeyay gobolka Mudug iyo magaalada Gaalkacyo ay ka socdeen hawlo nabadeed oo markaasi lagu xoojinayo nabadda gobolka Mudug Ali Maalin telefishinka caalamiga Hon Cable magaalada Gaalkacyo